munaasabadan oo ahayd mid lagu daafurayay maqaayadda cusub ee Sanca oo ay furteen ganacsato Soomaali iyo Yemeniyiin isugu jira ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada. Maqaayadan oo ah mid casri ah isla markaana waxaa bulshada Soomaaliyeed loogu sameyn doonaa noocyada kala duwan ee cuntooyinka Soomaalida iyo Yemeniyiinta. Maqaayadan oo ka shaqeysa waddanka Yemen ayaa xarunteeda Soomaaliya waxaa maanta laga furay magaalada Muqdisho. Waxaa ugu horreyn hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha maqaayadda Sanca oo isugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin iyo sidoo kale macaamiisha maqaayadan cusub. magaceeda la dhaho restaurant Sanca oo laga helo cuntada Yemanta ay nooc iyo cunto Soomaali iyo xalawiyaad wax dhan laga helo. waxaa ku soo dhawaataan maqaayadaas oo hadda laga furay xaafadda waa bari marka waxaa laga helaa cuntada dhan jamiican cunto waxaa jooga kookooyin Yemen oo hadda laga keenay Yemeni oo fiican oo wanaagsan waa inaad ku soo dhawaataan. فأتينا من اليمن لجميع المأكولات إلى أرض الصومال. لدينا لحم مندي، لدينا مضبي، لدينا جميع المأكولات، نصنع جميع المأكولات، ولدينا معمل للحلويات، ولدينا فرع للبرست لجميع أنواع البرست، جميع أنواع البرست شيكن تيكا، وهذا من فضل ربي إن شاء الله. وأهلا بكم صغيرا وكبير، مطعم صنعاء يرحب بكم، ولدينا دباخين درجة أولى وأتوا من اليمن لأجل يعملوا في الصومال. waxaa maanta sharaf inoo ah inaan ka soo qayb galno xafladda furitaanka maqaayadan ee lagu magacaabo Sanca. run ahaantii maqaayaddu waxaa ka heli kartaan cunooyin kala duwan oo ugu badan cunto Yemeniga. aniga ka bilaal ahaan waxaan aad u xiiseeyaa bariiska iyo hilibka isku kariska ah oo aan maanta laygu macsuumay. insha Allah asxaabteedana waa ku casuumi doonaa. dhammaan dadka reer Muqdishona waxaan leeyahay ku soo dhawaada Sanca restaurant oo ku taala isgoyska shaqaalaha. ugu dambeyn waxaa munaasabada ka hadlay Tawfiiq Axmed Cali iyo Abshir Xasan Yuusuf oo ah milkiilayaasha maqaayadan maanta la furay. waxaana markaasi ay sheegeen in maqaayadan ay si hufan ugu adeegi doonto macaamiisha isla markaana ay ka heli doonaan cunno tayo leh. ولقد جئنا إلى هنا لكي نستثمر في مجال المطاعم وفي مجالات أخرى إن شاء الله. وقد بدأنا بفتح مطعم صنعاء الذي يحتوي على جميع المأكولات اليمنية وأيضا الصومالية. ولدينا أيضا طباخين يعني من الطراز الأول في اليمن ومن أفضل الطباخين موجودين. والمأكولات حقنا تتميز بالمندي والكبسة والمضبي وجميع المأكولات والمشويات. ayaa waxaan furay maqaayadda la yiraahdo Sanca oo ku taala caasimadda Soomaaliya Muqdisho, jidka Maka Mukarraba, isgoyska shaqaalaha, ka soo horjeedka jawaasaadka ama baasaboorada. maqaayadan waxaa milkiilayaal ka ah aniga Tawfiiq Cali Axmed oo Yemeni ah iyo aniga Abshir Xasan Yuusuf la yiraahdo. waxaanuna ka furaynaa insha Allah gobolada dalka oo dhan iyo nawaaxiga caasimadda. waxaan maqaayadan ka kooban tahay 3 qaybood. qaybta koowaad waa maqaayadda weyn ee cuntada, waxaana ay qaybta biibitada ama buufiyada ama minbas ugu yaqaan oo iyadana gaar ah. maqaayad yar oo iyana dhinaca kaleeto oo qaybta kaleeto oo burusta ah oo digaag burusta ah. inta ayay ka kooban tahay. marka waxaan ku soo dhaweynaynaa dhammaan sabaayinka ama dadka oo macaamilka la leh maqaayadda Sanca. waxaan ku soo dhaweynaynaa cunto furan oo Yemen, cuntada Yemen jamiican, cuntada Yemen oo dhan oo kaamil ah, cuntada Soomaaliya oo kaamil ah, wax kasta oo cunto oo Soomaaliya iyo Yemen ka kooban tahay. waxaanu keenay Yemeniyiin ayaan dibadda ka keenay tababaran oo cuntada maxaan ku sheegay Yementa oo lambar 1 ka ah, hilibka oo noocyo badan u kala baxa iyo khubustii Yementa iyo cuntooyin badan oo badan ayaanu ku soo kordhinay.
cuntada Soomaaliyeena waa cuntada taqriiban iyadoo casri ah kuuga badan iyo shaqaale iyo service wanaagsan ayaa kala kulmi doontaan insha Allah. Maqaayadan ayaa qayb ka noqonaysa maqaaxiyo hab casri ah loo dhisay oo laga hirgelinayay muddooyinka dambe magaalada Muqdisho, waxaana maamulka maqaayadan uu sheegay in ay shaqayn doonto habeen iyo maalin isla markaana laga heli doono adeegyo raali gelinaya macaamiisha maqaayadan cusub. Maxamed Iidle, raadiyaha telefishinka Dalsan, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, gali lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MPIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.